وقرتي سحرك عبد السلام شيغان waxaa ka jira aniga inta halkan leegu yimida wax la sheega afgooy aan وقرتين Soomaa waa mucjiso aad u weyn waa aakhiro zamaan khalaas way fashilantay ilmaheeda ayay inkirtay iyadoo la qabana waxay tiray layma guursan wiligay nin ayayna guursatay laakiin wax walba hadda way burbureen war sheer gareeya jaalayaal waxaan idin haynaa arin la yaab ah maanta falow dhaha pageka Somali Social TV idinkoo subscribe dhahaya YouTube-ka Somali Social TV adinkoon iloobin in aad share ku qabataan muuqaalka sidoo kalena like saartaan muuqaalka aan ku bilowno waa arin la yaab ah waxaa toddobaadkani baraha bulshada lagu arkayay naag ay sheegeen dadka ama ninkeeda in la sixray oo iyadoo nin qaba ayay tiray nin ima qabo caruurteeda ayay inkirtay oo waxay dhahday caruur maanan dhalin oo gabar ayaan ahay laakiin waxa aad la yaab u ah ninka guursaday oo aan dareemin in ay tahay gabar ama garoob haddaba gabadhaani waxa ay noqotay keligeeda oo waa ay weyday saygeedii hore iyo midka kale ee dhawaan sirtay kadibna guursatay iyadoo ka dhaadhicisay in ay gabar tahay balse uu ninkii qabay arkay oo baraha bulshada ku faafiyay muuqaalo uu ku sheegay in ninka la yiraahdo Kamaal uu xaaskiisa sixray sixirkaasoo dhammaan inkirsiinayo ama ilowsiinayo in ay horay u haysatay caruur sidoo kalena xaas ahayd laakiin Kamaal ayaa sheegay markii uu ogaaday arrintaani halista ah ee ku socota ayuuna leeyahay ma ogeyn in ay ilmo dhashay warna kama haynin in ay horay u soo guursatay waa arin la yaab ah war sheer gareeya muuqaalka si aan u ogaano xaqiiqada dhabta ah ee ka dambaysa arrintaani aadka u la yaabka ah war gabar iyo garoob maad kala saari weysay Kamaalow waxaan filayaa in uu naagtaasi uu sheegayo in ay sirtay hal habeen uu romantic dhexmarin sababtoo ah meel ay ka soo baxeen ku dhawaad 8 caruur miyaan kala saari karin in ay tahay mid gabar ama mid garoob ah rag oo uur yeeshtay oo ilmo laga soo jiiday leela arkayna saxna way taas wax walba adduunka waa ka dhaca war wallahi inaan laga yeeleenin gabar iyo garoob sidee u kala saari weysay ninka xaaskiisa soo fasax alana ka baq ceeb kale odaygii mehriyay Hani Muumin iyo Kamaal oo sheegay in lagu khiyaamay sawir gabar kale Axmed Hayna oo tawfiiq caan ka ah isla markaasna ah ninka mehriyay ayaa yiri waa la ii khiyaanay Hani naag kale ayay iska soo dhigtay subxaanallah tanoo kale ma inoo dhinneed sidoo kale waxa uu sheegay in uu ka qayb galay labadii meher ee gabadhiisa waa kii Cabdusalaam 25 sano ka hor dhacay iyo kii Kamaal wuxuuna sheegay in la sixray markii labaad uu qaybka ka ahaa meherka gabadhiisa oo la qabo isagoona sheegay in afgooye la geeyay waa mucjiso aad u weyn waa aakhiro zamaan ugu dambeyn gabadhaani ayaa seegtay ninkeeda maya saas maahan aan iraahdo nimankeeda sababtoo ah waa xaas laba nin le ah sidaadba u jeedaan laba nin ayaa isla qaba hadda waxay weyday dhammaan caruurteeda ninkeeda iyo sharafteeda oo meel cidla ah ayay fadhidaa ugu dambeyn halkaasi ku soo afmeerana warbixinteena maanta ee aan uga hadalnay gabadhaani guursatay labada nin ee inkirtay caruurteeda intaan warbixintan tiisa kale aan ku kulmi doono waa dhammaantiin idin leh waqti wacan iyo waaysan